bismillaahi raxmaan raxiim waxaana wanaagsan dhegeystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan ama aad naga daawanaysaan. magacaygu waa maxamed cabdulaahi aadan maxamed cd. dabcan barnaamijkan waxaa nagu kalifan aan idiin soo gudbino. waxaa noo yimid su-aalo aad u fara badan oo ku saabsan barnaamijkii aan habeenadii lasoo dhaafay idiin soo gudbinaynay sida live-ka ah aad u daawanayseen idinkoo meelo badan oo caalamka tirsan jooga. dad badan baana soo weydiiyey oo markaasi yidhi barnaamijkaasi waxtar buu lahaa, waxaan rabnaa inaan kusoo biirno ood nagu soo dartaan si aad markaasi inaguna aan uga qayb galno barnaamijyada. marka waa runo haddii aadan noogu jirin circleka waxa la yidhaahdo suurtagal ma noo noqon karto inaan kugu soo darno. marka haddaad u baahan tahay inaad nagala qayb gasho barnaamijka aad daawanaysay, waxaad u baahan tahay inaad circleka noo soo gasho ood marka nagala soo qayb gasho. midda kale haddii aad joogto canada ama maraykanka oo kale way noo fududahay inaan qadka telefoonka kugu soo gelino. marka waxaad noo soo diri kartaa qadka telefoonkaaga ayaad noogu soo diri kartaa emailka aan hoos barnaamijka qaybihiisa dambe ku sheegi doono. kadibna waxaad nagula soo hadli doontaa facebooka ama email baa noo soo diraysaa xilliga barnaamijku socdo. waxaadna leedahay lambarkaygu waa kaasaa, magacayguna waa hebel hebel hebel, doodana waa la socdaa, waxaan rabaa inaan kaga qayb galo telefoon. kadibna telefoonka ayaan kugu soo qaban doonaa haddii ilahay ka raali noqdo. waxaan kaloo idinkaga mahad celinayaa sidii qiimaha lahaa ee barnaamijka aad noogu dhiirigeliseen inaan sii wadno. haddii ilaahay ka raali noqdo dhowaan barnaamijka waxaan u bedeli doonaa mid toddobaadla ah. toddobaad kasta barnaamij aad loo soo diyaariyey oo xiiso badan ayaan idiin soo gudbin doonaa. maanta waxaan rabaa kan intaan warka badin inaan midda kale waxaan idinka codsanayaa si barnaamijyadan oo kale aan usii wadno. youtube-ka aad hadda ka daawanaysaan barnaamijkan, fadlan haddaad youtube leedahay noo subscribe noo dheh oo noogu dar si markaas aad mar kasta oo aan wax soo gelino uu kugu soo dhaco youtube-kaaga adigana uu kugu soo galo. marka fadlan subscribe noo dheh, asxaabta saaxiibadaanana u sheeg inay iyaguna dhahaan subscribe. midda kale commenti ka bixi oo meesha hoose commentiyada laga bixiyana fadlan commentiga ka dhiibo si aan u ogaano waxyaabaha aad xiiseynaysaan oo aan markaa usoo diyaarino. please commentiga aan kaa sugayna adoo idinkoo dhahaya barnaamij noocaas oo kale ah lagu soo daro ama sidaas ha loo qabto ama meeshaas ha laga bedelo. wixii qaladaada fadlan qaybta hoose commentiga ayaan iyadana idinkala socon doonaa. sidoo kale wixii emailana waa nagu soo diri kartaan isla youtube-kan. waad mahadsantihiin. maanta waxaan ka hadlayaa sidee qofka raba google plus iyo hangout inuu isku isticmaalo muxuu u baahan yahay. haddaba wuxuu u baahan yahay haddii codkayga go-ay iga raali ahaada, microfonka iga yar ciladeysan. waxaad u baahan tahay dhowr qodob. midda koobaad waxay tahay waad u baahan tahay inaad haysato computer camera leh. waa muhiim. computerkaasi muhiim ma ahan inuu yahay b c iyo inuu yahay laptop, macnaha computer weyn oo desktop nooca loo yaqaano iyo inuu yahay laptop muhiim maahan. muhiimadda waxa waa inay kaamirad ku xidhan tahay. midda labaad inuu leeyahay samaacadaha dhagaha oo microfonka wata ood ku hadli karto si codkaaga si fasiixa dadka aad ugu gudbiso. midda kale oo qofku u baahan yahay waxay tahay inuu samaysto ciwaan gmail ah. haddaad leedahay waa fiican tahay, horaad u lahayd. laakiin haddaadan lahayn gmail waa inaad samaysataa, waa free gmail-ka kadibna samayso. markaas waa qodobka labaad. qodobka saddexaad oo markaad labadaas hesho, marka saddexaad waxaad u baahan tahay inaad tagto waxa loo yaqaano google plus. haddaba su-aashu waxay noqonaysaa google pluskan xagee ka tagaa? waa fududahay, haddaan ku tusayaa. fur browserkaaga, kadib markaad google furato oo caadiga aad markaas halkaas tagtid meeshii aad wax ku qori lahayd, qaybta sare waxaad ka arki doontaa magacyada meeshaas ay ku qoran yihiin. waxaa ku qoran calaamadaas plus, xisaabta marka la dhiganayo ku darta, iyo magacaaga ayaa halkaa ka soo baxaya. laakiin waa shardi in marka hore uu kuu furan yahay gmailku. gmailku waa inuu ku furan yahay. haddii gmailkaagu uusan furnayn, halkaa magacaagu kuma soo baxayo. waxaa ka soo bixi doona xarafka u oo ah adiga, kaasi oo ku matelaya adiga. waxaa soo bixi doona xarafka u. marka calaamadii balasta ahayd ee ku darta ahayd iyo waxaa soo baxaya xarafkaasi u ayaa halkaasi ka soo bixi doona.
halkaasuu kasoo bixi doonaa. hadda halkaas magacayaga ku qoran maxamed, laakiin hadhow waxaa soo baxaya magaca. haddii gmailka uu marka hore kuu furaya intaadan halkan gelin, haddii aad gmailkaaga ciwaanka inta gasho aad markaasi asagoo kuu furan aad googlekan timaado, halkaas aad timaado, halkaa waxaa kasoo bixi doona magacaaga. laakiin haddii gmailku uusan kuu furnayn, halkaa magacaagu meeshuu kasoo bixi lahaa waxaa kasoo baxaya u oo ah iyo balastas. markaas halkaas ayaad ku dhufanaysaa. halkaas markaad ku dhufato, sidaas ayaad ku tegeysaa waxa loo yaqaano google pluski. kadib markaad google pluska aad tagto, haddaad rabto sida muuqaal ahaan uu eg yahay google plusku, daawo barnaamijyadii hore usoo gudbinay, ka daawo qaabka uu u eg yahay. halkaasoon ku sharxi doono, qaybtaas dib ugu laaban maayo. kadib markii aad hadda marka waxaad computerkiina waad heshay, gmailkiina waad samaysatay, google pluskiina waad gashay sida hadda aan ku tusay. kadib waxaa loo baahan yahay inaad soo dejiso waxa loo yaqaano google talk plugin oo ah software plugin yar oo marka suurto gelinaya inaad codka laga maqlo ama muuqaalkaaga u gudbo, oo waxa computerkaaga iyo isku xiraya dadkii iyo isku xiraya iyo googleka aad isticmaalayso ayaad soo gelinaysaa. haddaba isweydiintu waxay tahay sidee kusoo geliyaa? waxaad kusoo gelin kartaa marka google pluskii aad tagto oo gudihiisa waxaad markaad isku daydo inaad qof wacdo ama aad qof u dalbato, waxaa kuusoo bixi doona magacaasaad arki doontaa oo ah inaad computerkaa ku shubto google talk plugin. kaas marka waa inaad click siisaa oo tiraahdaa install, kadibna oo computerka ku shuma asaga kuu sheegi doona oo ku dhihi doona wuu dhameeyey. markaas kadib ayaad iska xiraysaa. intaa markaad samayso weli qof lama xiriiri kartid ama dad badan lama hadli kartid. sababta maxay tahay? sababta waxay tahay waa inaad heshaa dadkii aad la xiriiri lahayd. qof kasta oo googleka ku jira, anigan kula hadlaya oo googlekan isticmaalaya google pluska, haddii aad samaysato lama hadli kartid, sababta kuguma jiro xayndaabkaagi kuma jiro. marka waa inaad xayndaab kusoo dartaa. marka waxa loo yaqaan circlekaas waa inaad sidee usoo daraysaa. circleku waa sida yahuga aad isticmaasho oo kale, ama noocaad rabtaba ha noqdee. haddii aadan qof kusoo darsan facebooka, qofka aadan kusoo darsan xaqiiq ma dhici karta ina qofka la xiriirto. marka sidaa darteed qofkii waa inaad kusoo dartaa meesha circle ay ku qoran tahay oo arki doonta circlesaa ku qoran. meeshaas waa inaad kusoo darsataa dadka aad kusoo darto ayaad la xiriiri kartaa. haddaad anaga nagu soo darsato waa kula xiriiri karnaa, haddaadan nagu soo darsan kulama xiriiri karno, isma arkayno. marka taasna waa muhiim. markaad intaas samayso ayaad waxaad dalbanaysaa waxa loo yaqaano hangout. isagaan rabaa in wax yar hadda ka tataabto. hangoutka markii aad ku dhufato waxaad imaanaysaa meeshaan, qaybtaanaad imaanaysaa. aniga waad ii jeedaa, waa i kaasaa. halkaan markaad timaadid, hangoutku gudihiisu sidaan u egyahay. marka meeshaan waa meeshii, halkan waxaa ku qoran invite people. waa inaad dadkii aad rabto inaad kusoo darto waa inaad casuuntaa. waa inaad click siisaa, kadibna dadkii aad u baahnayd ay soo galaan meesha oo markaas ay soo saftaan, halkaan soo saftaan. marka habeen dhaweed markii barnaamijka aad daawanayseen, waxaad arkayseen inagoo kusoo darayna waxyaabo badan ka bedelayna ayaad arkayseen. halkan ayaa laga sameeyaa. halkan waxaa ku qoran waxaa loo yaqaan hangout toolbox. marka halkana waxaa laga sameynaa qofka magaciisii oo kale. haddaan rabo hadda magacayga inaan halkaa kusoo qoro, shaashadda aan weyneeyo. hey, hadda waad ii jeedaan shaashadda markaa weyneysid, magacaygaan rabaa halkan inaan soo saaro. marka halkan inaan soo saaro aan rabo, waa inaan halkan ku dhuftaa. waa ina magacaygu halkaasuu ku qoran yahay. waa magaca markasta haddaa rabto waa bedeli kartaa haddaa rabtid, laakiin asagoo inta badan wuxuu automatic usoo qabsanayaa midka kuugu qoran gmailkaaga. marka off iyo on ay leedahay. marka haddaan on dhaho waxaa soo baxaya, haddaan on dhahay magacaygaa soo baxay sidaa ujeedaan. halkaasna waxaad ku qoran kartaa titleka barnaamijka aad qabanaysid. weriyaha tv aa noogu qoran. marka taasna waa colorka waa bedeli kartaa haddaad rabto. hadda colorka waa blue halkan. marka halkan colorka nooca rabtaad ka dhigan kartaa. markaad aad u baahnayna off aad iska leedahay.
halkan oo kale waxaad kusoo darsan kartaa haddaad rabto sawir kale oo halkan soo fuulaya haddaad u baahan tahay sawir kalaa soo fuulay halkan. sidoo kale waxaad samayn kartaa saacadda waddanka aad joogto ayaad meelahan soo saari kartaa. sidee usoo saaraysaa? halkan ayaad waxaad leedahay on, sida ujeedaanba saacaddii aad soo fuushay, saacadda computerkayga. dabcan kadibna haddaad rabto inaad saacadda meeshan saaran aad ka dhigtid bidix, dhinacan aad dhigto, hadda waxay saaran tahay dhinacan kale haddaad rabto inaad keento waxaad samaynaysaa marka hore waad iska xiraysaa, off aa leedahay, meeshan lefty hadda ayaad midig leedahay, right, kadibna on halkaanay soo fuushay haddana. taasna waa midaas kale. halkan la yiraahdo mirror waxa waaye in backgroundkan dambe iga dambeeya daahaas aad ujeedaan marna inuu xagga maro, sidee ku dhacaysaa? iyada korkeeda klik siinaysaa, klik halkaasuu maray, dhinac kale hadda klik dhinacaas kaleu soo maray, iyadana waa midaas. dad badan waxay sidoo kale isoo weydiiyeen sacabkii iyo waxyaabihii ay arkayeen sideed u samayseen. iyadana waxaan u samaynay, waxaan isticmaalaynay waxa loo yaqaano google, ama halkan ku dhufo, halkan ay ku qoran tahay abis, kadibna kasi waxaa kusoo bixi doona barnaamijyadan faraha badan. markaas waxaa ku dhufataa hangout toolbox ku dhufo, meeshay ku qoran tahay waa isla meeshii aan joognay, raalli ahaada. kadib meeshii aan joognay dhinacaan aan joognay, hadda laakiin waxaan tagaynaa dhinacan ay ku sawiran yihiin calaamadaas music ay ku qoran tahay, waxaa ku qoran sounds board. kadib sacabkii oo kale calaamadii aan dhehayno waa markuu qof wax qaldoo kale, waa kuwaasa. marka waa badan yihiin. marka kulleyba midda kuwaad ka isticmaalaysa adaa yaqaana. kuwa wejiga oo kale halkan ay ku dhooban yihiin, marka ku dhufto korkuu kaasoo fuulaya korkaaga, kadibna madaxaagu raacraacaya markaa dhaqdhaqaaqadeeda oo kale, sida habeenkiiba idin tusiinay live idinkugu tusiin oo kale. waa bedeli karta haddaad rabtid, saa ku bedesho sidii uu ku raaca. marka sidaasoo kale waaye. haddii marka aad rabtid marka inaad iska qaado off, meeshay ku qoranta saaraysaa. haddii kale marka rabtid inaad saartidna oona leedahay. marka waxaan jeclahay intaas inaan barnaamijkii kusoo gabagabeeyo. haddaan usoo dhawaaday kaamirada waa iga soo daba dhawaanaya, haddaan ka fogaado waa iga daba fogaanaya. marka waxaan leeyahay barnaamijka qaybta hoose commenti ka bixi. midda kale subscribe si aad u hesho barnaamijyada kale ee aan idiin soo gudbin doono. haddii barnaamijkan aad ka heshayna fadlan commentigaaga ayaan ka arki doonaa, su-aalaha aadna soo weydiin doonto. waxaana jecelnaa inaad subscribe na tirahdo. intaan dib dambe u kulmi doono, sidaa iyo waxaan idinkaga tegayaa